maalintii Badar markii dagaalku uu qaboobay nabiga naxariisii nabadgelyo korkiisa ahaatee waxa uu arkay Jibriil calayhi salaam oo soo degaya. Jibriil waxa uu xirnaa cimaamad midabkeedu uu yahay midabka huruudka ah. nabiga naxariisii nabadgelyo korkiisa ahaatee waxa uu eegay malaa'igtii kale ee maalintaas soo degaysay, dhammaantoodna waxay wateen cimaamado huruud ah. nabiga naxariisii nabadgelyo korkiisa ahaatee wuu yaabay, wuxuuna eegay ciidankiisii, wuxuuna arkay hal nin oo keliya kaasoo maalintaas xirnaa cimaamad huruud ah. ninkaasina waxa uu ahaa Zubayr bin Cawaam. Jibriil ayaa yidhi, yaa Muxamed, malaa'igta maanta waxay u soo degtay qaabka Zubayr bin Cawaam. bal eeg maqaamkaas in malaa'igtii samada ay isku ekaysiiso nin dhulka jooga. waa ninkii nabiga naxariisii nabadgelyo korkiisa ahaatee uu yidhi, nebi walba waxa uu lahaa xawaari, aniga xawaarigayguna waa Zubayr. waana mid ka mid ah 10 saxaabi ee lagu bishaareeyey jannada iyagoo dhulka jooga. soo dhowaada saaxiibayaal, aniga waxaan ahay Abshir Casaawe, halkanna waa Casaawe Media. maanta waxaan idinla wadaagi doonaa qisada Zubayr bin Cawaam. intaan muuqaalka sii gudagelin, haddii aad nagu cusub tahay, nagu soo biir oo subscribe sar channelka. haddii aad hore noogu xidhnaydna muuqaalka leegde oo na sii sheergare. Zubayr waxa uu ahaa wiil aad u yar markii uu islaamayey. qiyaastii waxa uu jiray 15 sano ama 16 sano. wuxuuna ahaa wiilkii ay dhashay Safiya bintu Cabdimudallib, taasoo ahayd nebiga eedidiis. aabihiis Cawaamna waxa uu ahaa walaalka Khadiija bintu Quwaylid. markii uu islaamay, adeerkiis Nawfal bin Quwaylid aad ayuu u carooday, wuxuuna Zubayr ku duubi jiray dirin caws laga sameeyey. kadibna waxa uu hoosta kaga shidi jiray dab qiiq badan si uu wiilka neefta ugu qabto. wuxuuna ku dhihi jiray, ka laabo diinta Maxamed. Zubayr oo indhihiisu ay biyo ka socdaan qiiqa dartiis, laakiin qalbigiisu uu adag yahay, waxa uu dhihi jiray, wallaahi dib uguma laaban doono gaalnimo. maalin maalmaha ka mid ah xilli islaamku cusub yahay, Zubayr waxa uu maqlay shaydaan ku dhawaaqaya, Maxamed waa la dilay. Zubayr ma uusan xanaaqin, mana uusan ooyin, mana uusan gaban. seeftiisii ayuu galka kala baxay, wuxuuna soo maray wadooyinka Maka isagoo dadka ku dhex jira. ujeedkiisana waxa uu ahaa inuu laayo ciddii dishay nebiga ama isaga uu dhinto. wuxuuna la kulmay nebiga naxariisii nabadgelyo korkiisa ahaatee oo nool oo nabad qaba. nebiga naxariisii nabadgelyo korkiisa ahaatee wuu yaabay markii uu arkay wiilkan yar ee seeftiisii galka kala baxay, wuxuuna ku yidhi, maxaa kugu dhacay Zubayrow? Zubayrna waxa uu yidhi, waxa aan maqlay in lagu dilay. nebiga naxariisii nabadgelyo korkiisa ahaatee waxa uu ku yidhi, haddii la idili lahaa maxaad samayn lahayd? ma ka daashay inaad iibka ku qorto buug iyo qalin oo mar kasta xisaabtu ma kaa qaldantaa? ma kugu adkaataa inaad ogaato alaabta kuu hartay, deynta maqan iyo faa'iidada dhabta ah? diiwaan ganacsi waa nidaam casri ah oo loogu talagalay ganacsatada Soomaaliyeed. dukaankaaga waxaad ku maamuli kartaa kombiyuutarkaaga ama moobilkaaga meel kastoo aad joogto. u qor iibkaaga si degdeg ah, haddii ay kaash tahay iyo haddii ay deyn tahayba. marka uu iib dhaco, alaabta si toos ayay u yaraanaysaa, waxaadna ogaanaysaa waxa kuu harsan. diiwaangeli macaamiishaada. haddii ay jirtay deyn hore, ku qor deynta, kadibna ka qaba deynta adigoona ku dirsanaya akoonkaaga. samaysa akoomadaada sida kaashka, midka bangiga ah iyo midka expenseska ah. kadibna riboodyada oo dhan waxaad ku helaysaa hal kliig oo keliya, adigoo helaya riboodka maalinlaha ah, midka isbuuclaha ah, midka bilaha ah iyo kan sanadlaha ahba. xogtaadu waa ammaan, waxaana jira kaydin awtomaatig ah. ha sugin ilaa uu buugga kaa lumayo. bilow maanta diiwaan ganacsi oo ku xisaabi ganacsigaaga, lana soco alaabta kuu taalla, deynta kaa maqan iyo iibka aad samaysay. Zubayrna waxa uu yidhi, wallaahi waan dagaalami lahaa ilaa aan ka dhinto. nebiga naxariisii nabadgelyo korkiisa ahaatee wuu u duceeyey, isaga iyo seeftiisaba. taariikhyahanaduna waxay yidhaahdaan taasi waxay ahayd seeftii ugu horeysay ee dar alle loo siibo taariikhda islaamka. Zubayr waxa uu hijrooday magaalada Madiina, wuxuuna guursaday Asma bintu Abibakar, taasoo ahayd gabadhii uu dhalay Abubakar al-Sadiiq. bilowgii waxay ahaayeen dad aad faqiir u ah. Zubayr ma lahayn waxaan ka ahayn faraskiisa iyo geel biyo lagu dhaamiyo. Asmana waxay tidhi, aniga ayaa faraska u cusgoyn jiray, biyahana u dhaamin jiray oo gurigana maamuli jiray ilaa aan ka daalo.
laakiin Zubayr waxa uu ahaa nin ganacsado ah oo barakaysan, wuxuuna ka qayb galay dagaal walba, wuxuuna helay qaniimooyin, wuxuuna yidhi weligii wax ma qiyaamin, waxna ma qarin, alla ayaana macaash ka rabay. Muddo kadib Zubayr waxa uu noqday mid ka mid ah dadka ugu taajirsan saxaabada. Markii uu dhintay, hantidiisa waxaa lagu qiyaasay 50 milyan oo dirham, laakiin hantidaasi qalbigiisa ma gelin ee gacanta ayay ugu jirtay. Dagaalkii Qandaq, xaaladda aad ayay u xumeed. Yahuudii reer Bani Qurayda ayaa ballantii ka baxday. Nebiga naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ahaatee, waxa uu u baahday nin naftii hura ah oo aada dhanka Yahuudda si uu war uga keeno. Nebiga naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ahaatee, waxa uu yidhi, yaa warkooda noo keenaya? Zubayr ayaa si degdeg ah u yidhi, aniga. Mar labaad ayuu rasuulka ku celiyey. Zubayr ayaana yidhi, aniga. Mar saddexaad ayuu ku celiyey. Isla Zubayr ayaa yidhi, aniga. Markaas ayuu nebiga naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ahaatee, waxa uu yidhi hadalkii taariikhiga ahaa, wuxuuna yidhi, nebi kasta waxa uu lahaa xawaari, aniga xawaarigaygu waa Zubayr. Ereyga xawaari waa darajo ka saraysa saxaabi caadi ah, waa mid naftiisa u huray nebiga si gaar ah. Dagaalkii Yarmuug ee lala galay Roomaanka, ciidanka muslimiinta waxay ahaayeen 40,000, halka Roomaanka ay ahaayeen 240,000. Koox ka mid ah geesiyaasha ayaa u yimid Zubayr, waxayna dhaheen, Zubayrow, miyaadan weerar qaadayn? Aan kula qaadnee. Zubayrna waxa uu ku yidhi, haddii aan qaado, ima soo raaci kartaan, waad baqaysaan ama waad dhimanaysaan. Waxayna dhaheen, maya, waan kula qaadaynaa. Zubayr waxa uu yidhi, Allaahu akbar, wuxuuna galay ciidankii Roomaanka dhexdooda, sidii leebkii ayuuna u dhex maray safafkoodii. Laakiin markii uu gadaal soo eegay, cidina ma soo raacin, keligiis ayaana dhex jooga kumanaan cadow ah. Haddaba miyuu soo noqday? Jawaabta waa maya. Safafkii Roomaanka ayuu dhex jeexay ilaa uu dhanka kale uga soo baxay, kadibna dib ayuu ugu soo noqday. Mar labaad ayuuna dhex jeexay safafkii ilaa uu ku soo laabtay muslimiinta. Jirkiisa waxaa laga tiriyey nabaro badan. Wiilkiisii Curwa waxa uu yidhi, Zubayr garabkiisa waxaa ku yaalay 2 nabar oo waaweyn oon carruurnimadeedii faraha gelin jiray oon ku ciyaari jiray. Nabaradaasina waxay ahaayeen biladihiisii geesinimo. Wakhtigii dambe waxaa dhacday fidnadii weyneed ee u dhaxaysay saxaabada. Zubayr iyo Dalxa waxay la safteen dhanka Caysha, iyagoona dalbanayay in la dilo gacan-ku-dhiiglayaashii Cusmaan. Dhanka kalena waa Cali bin Abi Taalib. Ka hor inta uusan dagaalku bilaaban, Cali ayaa u yeeray Zubayr, wuxuuna ku yidhi, Zubayrow, ma xasuusataa maalin aad la joogtay nebiga? Wuxuuna ku weydiiyey, ma jeceshahay Cali? Adigana waxaad tidhi, haa, laakiin rasuulku waxa uu ku yidhi, waad la dagaalami doontaa adigoo dulminaya. Zubayr wuu naxay, xasuustii ayaana ku soo dhacday. Wuxuuna yidhi, Ilaah baan ku dhaartaye, haddaan xasuustay, wallaahi kulama dagaalamayo. Zubayr goobtii ayuu ka baxay, wuuna iskaga tegey ciidankii iyo dagaalkii, wuxuuna doortay inuu ka fogaado dhiigga muslimiinta, isagoona fulinaya dardaarankii nebiga. Zubayr isagoo sii socda kana fogaaday dagaalkii, waxa uu gaaray meel la yidhaahdo Waadi Sabca, wuxuuna bilaabay inuu salaad tukado. Nin la odhan jiray Caamir binu Jurmus ayaana soo dabagalay. Ibnu Jurmus wuxuu sugayey ilaa Zubayr uu ka sujuudayo. Markii uu sujuuday, seeftii ayuu qoorta kaga dhuftay. Zubayrna waxa uu dhintay isagoo sujuudsan iyo isagoo ka fogaaday fidnada. Ibnu Jurmus wuxuu qaatay seeftii Zubayr, wuxuuna ula cararay dhanka Cali bin Abi Taalib, isagoona u malaynaya in abaalgud uu helayo maadaama uu dilay cadowgii Cali. Markii uu Cali u tagay, wuxuu ku yidhi, waxaan dilay Zubayr, waana tan seeftiisii. Cali ibn Abi Taalib wuu naxay, seeftii ayuuna qaaday, wuu dhunkaday, wuuna ooyey. Kadibna waxa uu ninkii ku yidhi, u bishaaree naarta ninka dilay ina Safiya, waayo waxaa maqlay nebiga naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ahaatee oo leh, u bishaaree naarta ninka dili doona Zubayr. Ka hor inta uusan dhiman, Zubayr waxa uu la dardaarmay wiilkiisii Cabdulaahi, wuxuuna ku yidhi, wiilkaygiiyow, deen badan ayaa igu taala, haddii aad bixin weydo, kaalmo weydiiso mawlahayga. Cabdulaahina waxa uu yidhi, aabe, waa kuma mawlahaagu? Zubayrna waxa uu ku yidhi, waa Alle. Zubayr waxa uu dhintay isagoo ka tegey dhaxal geesinimo,
daacadnimo iyo ubad khayr qaba sida Cabdullaahi, Curwa iyo Muscab. Allah ha ka raali noqdo xawaarigii rasuulka. Fadlan daawade, haddii aad ka heshay qisadan quruxda badan, fikirkaaga ku aadan qisadan noogu reeb qaybta kommentiga. Haddii aad tahay saaxiib nagu cusubna, nagu soo biir oo subscribe sa channelka. Haddii aad hore noogu xirnaydna, muuqaalka leegdhe oo na sii sheergare si ay u gaaraan saaxiibo badan oo adigoo kale ah oo qisooyinka jecel. Sidoo kale haddii aad jeceshahay qisooyinka nebiyada, waxaan kuu diyaariyey dhammaan qisooyinka 25 nebi ee Quraanka lagu sheegay, waxaadna ka heli doontaa channelka. Sidoo kale waxay kugu diyaarsan yihiin playlist gaar ah, halkaas ayaadna ka daawan kartaa.